magacaygu waxaa la dhahaa ayaan shirada agadaa waxaana ka imid deegaanka Gurceel gobolkaas baan u dhashay gobolkaas baadiyihiisaan ku koray oon ku barbaaray beerkanaga maxaan ku raraa beer iska reer miyi oo maxaan ku raraa iska tabar daran waay marka aabbahay xoolihiisa marka waqtigiisii horeeto beer xoolo labay ahayn xoolahooda waa la dhacay maxaan ku raraa aabbahay ilmihiisa horaa loo laayay marka aniga xanuunkaas markaan soo hana qaaday oo igu dhacay meeqa sano jirtay camal markaas waxaan jiray da'da 17 meelahaas 17 sano ilaa 16 marka nin baan guursaday ninkii markaan guursaday 2005 bay ahayd ilmaan qaaday ilmihii markay 3 bilood yihiin bay iga soo dulmeen haddana sanadkii dhexdiisa markii uurka baan qaaday ilmihii way iga soo dulmeen jirkii baa isbedel weyn aan dareemay xanuun ah xanuunkaas waxaa waay jirkii dhan oo idibaaxiyay jirkii oo iska bedelay culays fara badan xanuun fara badan ilaa ciribta ilaa madaxa oo jirkii macnaha dibaax baan ka dareemayaa dhiigga caadada oo dumarka ku dhacay iska bedelay meeshii aan dhiig arki jiray waxaan ka arkay biyo iyo wax oo maan dhiig sax aan ahayn kadib haddana waxaa iga soo baxay gar 2006 ilaa muddadaas xanuunkaas muddo dheer buu iska watay 3 sano markuu ninkii qabo xooray waa isbedeshay nin baad noqotay marka aniga qof dumar ah u baahan oo ilmo iyo taran aan ka helo saas daraadeed aniga qof qabi karta maahi nin baad noqotay waa isbedeshay mana isxamil karna waa iska ka furaya diyaar baan ilaahba qadartan ii keenay ma hadda iska firto wax dhib ma lahan baa sidii baan ku kala tagnay waan iska xanuunsanaa jiray sidii baan ku joogay haddana mar kale baan nin guursaday anigoo si u xanuunsan ninkii haddana isla markiiba waa iga cararo wuxuu yiri nin naagna baa tahay aniga naag baan wada waan ku qaldamay baa midabta kooray oo xanuun dhagax tuur iyo wax maxaan ku raaday aniga markaas aan ku qanacsanayn baan bulshada dhexdeeda kala kulmay nin islaan dhaqtarada baan la kulmay waxaan xanuunkan baan isku arkay waxaana maxay tahay adaa dhaqtarada waxay tiri waxaa keena hormones qaldama keena dibadana maxaan ku raraa meeshan waxba looga maqan karo ee dibad ma aadi kartaa waxaan aniga reerkana waxaan waa reer iska tabar yar dibadna iyo ma diri karaan maxaad ugu la talin lahayd aniga dibad baan kugu la talin lahayd haddii aad awooddaada leedahay dadkii baan la fistay waxaa la yidhi hay'adahan qaxootiga iyo meelahaas iska aad baa leedahay qaxootigan soo aaday markaan qaxootiga imidna xaqardheer baan kusoo degay nin abtiga degan ninkii markaan kusoo degay abtiga wuxuu yiri wuxuu karkaar markaas ma soconine wuxuu keen xaq dhagaxley marka imid adii kaar hore kama helin maxaan ku raray blog aan ku noolaaba bulshadii dhan baa hal mar isku kacday xaalay naagnina timi dhagaxley dhagax tuur maxaan ku raray waxyaabo tira badan fayl la isoo galay aniga dhan dhagax tuur miyaa istaagan waay hay'adii MSF warkayga maqashay waxay igu tan blogii aan deganaa blogii aan ku soo degay waqtiga ay keenay hay'adii way qaado baawur ba ii keenay istaalka la geeyay form baa la buuxiyay isla markii waxa la geeyay xawajibay computer baa la isaaray isbedel weyn baa ku hayay waa la qaad isla markiiba MSF iyo hel cross oo isla socda ay qaadeen waxa la geeyay istaalka gaariso marka computer la isaaray haddana Nairobi baa la igu soo baaray waxaa la yiri nin iyo naag baa tahay waxaan ku raadayay waa makaankaaga meesha taashi tarankan waxba kaaga go'an baa marka saas daraadeed way soo celisay hay'adda MSF iyo waa la keenay MSF baa la keenay MSF way soo celisay marka ay soo celisayna waxaa la dhahay waxba lagama qaban karo wadankan saas daraadeed waxaan ku gudbinaynaa UNHCR qof raga lama noolaan karo qof dumarana lama noolaan karo marka qof waxaan ahay nolosheedaba ciriiri ku jirto mustaqbalkeedana oo mugdi galay oo haddii jidka maraya waxaa leeyahay waa tii naagtahay mar waxaa leeyahay waa tii ninkahay dhagax tuur iyo dagaal maxaan ku raraa fafaad badan kala kulma bulshada dhexdeeda
dadka walaalaha Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ummadda Islaamka inta danqanaysa waxaan ka codsanayaa in macnaha gargaar oo caafimaadka la ii fidiyo maadaama aan ahay qof dhibaataysan oo aan awoodin inaan dibad aado xanuunkayguna uu daawo leeyahay daawadiisana is wadankan uu leeyahay baan codsanayaa marka waxaan codsanayaa walaalaha mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad aan ku celinayaa mustaqbalkayga mugdiga gala in mugdiga laga saaro oo maxaan ku noloshayda ciriiriga in ciriiriga laga saaro ilaahay baa ciriiriga iga saari kara waxaan codsanayaa